السلام عليكم كسر دوادة شنكينا بدقبك النفط أي تربية توصل وولاشين كوسر سعيد فضلن كسر دوادة شنك ما عنده واحد سويدين إن دتك النارسيس جاهي ما فرح سيهين ما يهين دت كو قناع سنة شودة ما يهين دت رعلي كوه مستواه نلو شودة أما مستواه دقاله هذا ما يهين دت ساكن كوه حالة أي كشران iyo maartay halka ilaahay bulshada kaga soo beegay sida aynu wada ognahay dadka narcissistka waa dad ciladaysan marka waa dad noloshooda oo dhan jiritaan ku badan tahay waa dad ay adag tahay in ay dareemada dhabta ee bini'aadanka kale ee caafimaadka qaba ay dareemaan ay adag tahay iyagoo waxa laga yaabaa inay dusha markay ku muuqdaan ay yihiin dad farxad badan yani dad qosol badan dad kaftan badan laakiin xaqiiqada waxay tahay gudahooda farxad ma taalo gudahoodu waa madow gudahoodu waa mugdi farxad kama jirto nololna kama jirto farxadda way iska dhigdhigaan inay faraxsan yihiin laakiin weligood ma farxaan yani farxadda dhabta ay dadku dareemayaan ma dareemaan laga yaabaa maaragtay inaad mararka qaar istiraahid qofkan isagaaba dadka ugu firfircoon yani isagaaba ugu kaftan badan ugu maya waqtiga kaliya tala gudahooda ay ka dareemaan in yaro farxada ama in yaro nafisa ama in yaro yani deganaansha wax weeyaan marka ay qof bini'aadana bahdilaan marka ay qof bini'aadana qiimihiisa hoos u dhigaan marka ay qof niyadda ka jabiyaan marka ay qof ka jeeraan farxadiisa ay dareemaan farxad iyo saakin iyo deganaansho iyo wax caadi ah dareema laakiin markooda caadiga ay kaligood ay iska yihiin ay dusha inooga muuqdaan dad faraxsan maaha dad farxi karana maaha fikradda ay farxadda ka haystaan ba waxay tahay qof bini'aadana maaragtay bahdil kadib dareen farxad adu waad saasa ku dareentide waxaynan ognay farxaddu qofka bini'aadanka gudihiisa ka bilaabanta halka laga dareemo waa gudaha dushan waxa inooga muuqdaa waa saameyntii ay farxaddu yeelatay laakiin ka farxadda laga dareema dhabtayda waa gudaha sooma iyagu gudihii bay ka qaawan yihiin dareen ma laha dareemada emotionka oo dhan way maaragtay way ka aradan yihiin waayo gebigooduba waa dad dareemadoodu ay yihiin korkaxaadis dareemo gun ballaaran oo gudahooda ah ma haystaan taasina waa ta keenta markay isku dayayaan dadka inay u muujiyaan inay faraxsan yihiin waxaad ku dareemaysaa inay farxadoodu hataa fake tahay markay isku dayayaan inay farxadda muujiyaan waxay u muujiyaan si ku talax tag ah maaragtay farxad ka badbadina oo aad arkaysa inay maaragtay sansamays tahay oo ka badbadina si ay dadka ugu qanciyaan yani really waan faraxsanay dhabdhab baan u faraxsanahay waxaad arkaysaa iyagoo maaragtay imaka faraxsan oo wax ay ku farxaan ama ha ahaato in shaqada la dalaacsiiyey ama ha noqoto inay lacag badan heleen iyagoo si aad iyo aad u faraxsan ayaa haddana in yar kadib farxadoodii cara bedelaysa hadda wax yar waqti yar kadib minidho yar kadib farxadoodii cara bedelaysa waana adagtay qofka bini'aadanka ee caadiga ah caafimaadka qaba inay dareemadiisu sida mowjadaha ay marna kor u boodaan marna hoos u dhigmaan laakiin iyagu maadaama ay yihiin dad dareemadoodu aanay ahayn qaar gundheer oo markiiba ay korkaxaadis ay tahay markiiba la gaari karo haddii maalintoodii quruxda badnayd ay wax yar khalad noqdaan ama wax yar ay isbedelaan ama wax yar si rabeen ay noqon waayaan waxaad arkaysaa isla markiiba iyadoo maalinta isu bedeshay maalin madow qofku aad iyo aad u xanaaqay deetana gebigaaguba aduguna confuse iyo la yaab aad qaadid ah maxaa khaldan soo kii qofkan imika faraxsanaa siibu markiiba isagoo mar dheed deganaa imika haddana uu markiiba halkaa u gaadhay haddii maaragtay aad tahay qof la nool ama ka agdhow ama wada shaqaysaan ama isqabtaanba ruux naarsiisiga dabeecada waxaad yeelanaysaa ah aad u dhaqmayso qof inaad tahay qof mar walba is ilaalinaya qof taxadar ku jira qof sidii maaragtay ku dul soconaya qolof beedoo kale ku dul soconaya suu isu ilaalin lahaa qof haddii lagu dhahaa qolof beed ku dul socoyaanu jabin suu isu ilaalin lahaa uu faraha hore ugu socon lahaa kale ayaad la mid tahay qof mar walba noloshiisa oo dhan ku jira is ilaalin taxadar qofkan yuu cadhoon waxaad ka fikiraysaa tolo maxaa ka cadhaysiin kara tolo maxaa fikradaada waxaad ka baadhaysaa wax khaldami kara lacalla wacasa khaldami kara hataa dad wax kasta isku dayda hagaajiso saakin ma noqonayso sababta qofkan wuxuu ku baray haddii waxa aad qabatay boqolka waxaad qabatay haddii laba wax ay xun yihiin waxaan waan kugu qarxayaa waan cadhoonayaa waxaan cadhoonaya weliba cadho aan sidii la kala guurayo kale waayo dadkani ma aha dadka u tura waqtiga ay cadhaysan yihiin qofkan waa isla joogtaan uma turaan
ma eegaan qofkan waa isla nooshiin ma kala tegaysaan hataa cadhadaada u samee maaragtay wax u qalma ka dhig waxa dhacay ma yaqaanaan laakiin waxay u qarxayaan sidii ay adduunyada rogmatay oo kale taasina qofka ka agdhow noloshiisa dhan waxay ka dhigtaa qof mar walba taraqub in loogu jiro kale in cidi ay gabadka ugu jirto oo cid uu maaragtay iska eegayo oo wax iska dhowrayo oo khaladaadka dhan iska dhowrayo laga way yartay inuu qofkaas maaragtay qofnimadiisa u dhaqmo oo iska sidiisa iskaga dhaqmo way ku adagtay qofka narcissistka la nool ama la jooga ama la dhashay ama ay dhaleen ka agdhawaanshaha ama la noolaanshaha ruux narcissistka waxay la mid tahay mataqaanaa sidii inaad tahay qof haysta ilmo yar oo aanad filan karin ama aanad sii odorosi karin ilmaha yar goormuu farxi oo qosli ama goormuu cadhoon oo ooyi laakiin waxyaabaha caruurta ay kaga sii darayinba waxaa ka mid a ama caruurta yar ayaga ay caruurta yar kaga fiicayinba waxaa ka mid ilmaha waad dejin kartaa yacni wuxuu doonaya waad u hagaajin kartaa muurkiisa waad sixi kartaa laakiin qofka narcissistka waxaa laga yaabaaba inuu ku dhibaateeyo ama af ha kugu dhibaateeyo ama gacan ha kugu dhibaateeyo cadhadiisa markaa uu cadhado inuu qofka cidda koowaada dhibtu ka sugaadhay noqoto cidda ka agdhow taas ayaa ka dhigaysa ruuxa narcissistka in muurkiisu uu ka daran yahay ilmo yar oo beebiyo jiifa xaqiiqada jirtaa waxay tahay ruuxa narcissistka wax kasta uu sameeyo yacni si kasta uu dhaqmo wax kasta uu muujiyo si kasta uu jilo gudihiisa marna kama dareemi karo bal ka yaaba subxaan allah marnaba gudihiisa kama dareemi karo deganaansho dhaba inuu saakin noqdo inuu farxo inuu noloshiisa ku farxo in ilaahay uu ku farxo ilaahay nicamka uu siiyey ilaahay waxyaabaha uu siiyey inuu indhaha ku qabto uu ku farxo marna ma dhici karto waayo waxaad mar walba arkaysaa ruuxa narcissistka wax walba haystaba inaanu ku saakinayn waxa haysto inaanu maaragtay u arkayn inay nimco tahay inuu indhihiisu ka lalinayo indhihiisu aanay qabanayn waxaanu haysto waayo noloshaba gudihiisa waa farxadda gudaheena ka bilaabantaa farxadooda gudaha aanay farxad ku haysan taasina waxay ka dhigtaa dad maaragtay mar walba waxay haystaan wax kasii badan bay raadinayaan waa dad damac badan waa dad khiyaamo badan dad isdabamaris badan waa dad xaasidnimo badan dadka kale waxay haystaan ka haysta xataa haddaad waxaad adigu haysato ay yihiin wax ka yar waxooda haddana way xaasideen waayo dad saakina maaha dad gudaha ka caafimaad qaba maaha dad gudaha ka bayuura maaha dad gudaha maaragtay ka degan maaha gudahooda nuur kama baxayo gudahooda gudcur baa ka jira gudahooda nolol kama jirto taasaana ka dhigtay taasina waa cilada maaragtay haysata ee narsisnimada ayaa saa ka dhigtay inaanay saaki noqon marka intaan mar kale ku kulmayno insha Allah xalqadii intaasaan maanta ku gabagabeynaa ruuxa narsisiga ama farxa ood ku mahadsan tahay inaad muuqaalkaygan daawatay fadlan share garee dadka u baahan gruubada lagu share gareeyo si maaragtay looga taxadiro dadka noocana waa mahadsantii dhamaantii